arrinta ugu horreysa aan kugu baraarujinaya waxay tahay barnaamijkan waxa daawanaya dadka aqoon badan kaawa aragsan wax kasta taqaano dadkaaga khibrad badan haddii aad wax beena sheegto dadka ina daawanaya way soo sheegayaan marka waxa laga rabaa inta aan su'aalaha ku weydiinayo khudbad runa maxaad waxa uu ka sharaxan yahay gobolka Togdheer waxana uu sharaxan yahay golaha wakiilada haddii xilliba lagu doorto mushaharka aad qaadan doonto waxa laga keenayaa islaanta yaree tamaandhada baadka ku iibinaysa maxaad u qabanaysaa oo la taaban karo 1 2 3 oo bari lagu xisaabtan karaya farxaan haweenka gobolka Togdheer ummadan waxay doorteen 2015 xildhibaan baa loo codeeyay adigu miyaad maqashay xildhibaano gobolka Togdheer u matalayo oo laba mid iyo laba aan ahayn oo leeyahay kaasi gobolka Togdheer buu matalayo arrimo noocaas oo bulshada baahiyaheeda ayuu golaha ka doodayay miyaad maqashay adigu waa maya gobolka Togdheer waxa ka sharaxan musharaxiin fara badan qaar waxay ka duulayaan reernimo qorshe kale oo ka dambeeya haba yaraatay ma jiro qiimeynta musharaxu waa barnaamij cusub oo aynu ku qiimeyn doono musharaxiinta kala duwan ee u tartamaya golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka su'aalo kooban ayaan weydiin doonaa musharax kasta taasi waxay ku sahli doontaa inaad qiimeyso musharaxa aad markaa ku aaminayso mustaqbalkaaga mustaqbalka ubadkaaga iyo mustaqbalka wadanka adigoo falanqeynaya ama qiimeynaya musharax kasta oo aynu wareysano si aan uga gudubno hanaanka qabiilka lagu soo xulayo musharaxiinta sidaas darteed maanta waxa barnaamijka igu martay musharaxii koowaad ee aan wareysan doono maxaad waxa uu ka sharaxan yahay gobolka Togdheer waxana uu sharaxan yahay golaha wakiilada marka su'aalo ayaan weydiin doonaa maxamed su'aasha koowaad aan ku weydiin doonaa waxay tahay maxay musharaxnimadaadu soo kordhinaysaa musharaxnimadaydu waxay soo kordhinaysaa waxaan ahay shakhsi dhisay noloshiisa asaasiga maanta waxaan diyaar u ahay inaan bulshadayda gobolka Togdheer u shaqeeyo si daacadnimo leh gobolka Togdheer waxa ka sharaxan musharaxiin fara badan qaar waxay ka duulayaan reernimo oo reerka iyagu waa inuu yeeshaa xildhibaan qorshe kale oo ka dambeeya haba yaraatay ma jiro qaar waxay ka duulayaan in ay ka shaqaystaan qaarna waxay ka duulayaan inay ummadan ugu adeegaan daacadnimo waxaan noqon doonaa in ummadan ugu adeega si daacadnimo su'aasha kale aad ku muhiimka ku weydiinaya waxa weeye horta ma garanaysaa ma fahansan tahay waxaad u tartamayso ee aad u cararayso inaad xildhibaan noqoto sharciyan ma fahansan tahay ka madaxweyne mustaqbal ahaan sida buugga warqadihiisa ay u cad yihiin bay iigu cad yihiin waxa aan u tartamay waxaan u tartamay waxa weeye inaan noqdo sharci dejin iyo isla xisaabtamayno hay'adaha fulinta haddii lagu doorto mushaharka aad qaadan doonto waxa laga keenayaa islaanta yaree tamaandhada baadka ku iibinaysa taasoo doonaysa nolosheeda isbedel horumarineed maxaad adigu markaa dadkii ku soo doortay ee codka ku siiyey maxaad u qabanaysaa oo la taaban karo 1 2 3 oo bari lagu xisaabtan karaya maxaase cusub aad soo kordhinaysaa shaqadaydu ma ahaan doonto inaan golaha iska dhex fadhiyo ama aan hargeysay hodheeladeeda aan fadhiyo hase haatee waxay noqon doontaa shaqadaydu inaan gobolka Togdheer fadhiyo waxaan noqon doonaa xildhibaankii ugu horeeyay ee gobolka Togdheer xafiis ku yeesho waxaan noqon doonaa nin u kurgala xaaladaha ka jira ummadda gobolka Togdheer way ogsoon yihiin in haddii aan u fadhiisto golaha sharci dejinta jamhuuriyadda Soomaaliya inaan hay'adaha fulinta aan isla xisaabtan dhaba aan hordhigi doono shacabka gobolka Togdheer si weyn bay garanayaan wax badan bay daawadeen anigoo la ka madaxweyne mustaqbal ahaan madaxweynaha waxaan u leenahay hay'adaha sharci dejinta waxaan u leenahay xukuumadda iyo wasiirada waxaan u leenahay baahiyaha noocaas ayaa ka jira gobolka Togdheer waxa laga qabto gabagabadii barnaamijkeena soo gaarnay maxay tahay fariinta aad u dirayso dadka ku daawanaya inta daawata muuqaalkan waxaan u baahanahay taladiina markaan helo waxa imanaya iskaashi markaan helno waxa ka dhalanaya horumar in aynu gaarno gobol ahaan oo aynu isla jaan qaadno